iyadoo maanta ay tahay mawlid nabigii oo ay tahay 12kii Rabiic al-Awwal 1434 taariikhda hijriga ah kuna beegan 24kii bisha January 2013 taariikhda miilaadiga ah anigoo Bashiir Sheekh Umar Good halkan waxaan ku soo duubayaa qasiido nabi amaana oo ka hadlaysa si kooban siiradii nabiga qasiidadan waxaan tiriyay bishii October 2002 iyadoo daabacan hore internetka way ugu soo baxday imikana iyadoo cod ah ayaa soo duubaya waxay tiri bismillaah iyo diinta barakadii nabigeena sallallahu alayhi wa ala ahli bayti dunidoo mugdi joogta habeen magangooyo nuurkii mudh la siiyay maka nooga iftiimay kuwii ku mormaayay xumaanta maleegay habeen mulkigooga mawluhu ka wareejay muhammad nabigeenu adduun ka mudnaaday sallallahu alayhi wa ala ahli bayti aaminoo murugaysan guuluhu ugu maciinay miyirkiisa maanka xumaan laga maydhay qalbigiisa muraayad malaa'igtu ka yeeshay sallallahu alayhi wa ala ahli bayti awowgii u maleeyay markuu aabihii waayay adeerkii midigtiisa madaxiisa ku qaaday maahugeega khadiiji mulki siisay nafteeda sallallahu alayhi wa ala ahli bayti isagoo miyir qaadan malkadii xiro jooga uu macbuudku quraanka madaxiisa u dhiibay jibriil uu macnihiisa xarfihiisa u miiqay madadaaliyo sheeko murti loogu dhameeyay aadamaa maskaxdiisa iyo maankaba deeqay sallallahu alayhi wa ala ahli bayti kii muftaaxa adduunka mu'miniinta u dhiibay caqligii miridhaystay daxalkii ka madiiday kii qurayshtii mormaysay xikmadoodii malaasay kii quraanka muggiisa ku muuquushay garaadka sallallahu alayhi wa ala ahli bayti muluugtii furus joogtay kuwii room miciyaystay dulmiga iyo maroorka dadka miidho ku haystay inaan mawdba helaynin ilaahay isku maleeyay cabsi eebba ku miisay qalbigooga ma jiirtay intaanuu muruq saarin miyirkoogu gariiray sallallahu alayhi wa ala ahli bayti markay ciilka qurayshi u maleegtay xumaanta hormuudkii muslimiinta xabashow magangeeyay sallallahu alayhi wa ala ahli bayti kii habeen minankiisa looga dheelmiyay meel fog jibriil uu martiqaadka uga keenay macbuudka maqdaskii nabiyoo dhan madan loogu casuumay sallallahu alayhi wa ala ahli bayti malakuudka sareeya malaa'igtu u raacday kadartii muntahaadna jibriil uu kaga maagay markuu eegay xaggiisa uu miciisi ka doonay madashaasi ma dhaafno hadal uu ugu moosay sallallahu alayhi wa ala ahli bayti kolkii uu ka maleegtay malkadii sare gaadhay kursiga iyo maqaamku u bayaan ugu muuqday si aan aadami moodin maskaxdeenu ka saynin indhihiisa muggooda ugu eegay macbuudka macaankeeda iyo dhuuxa iyo diinta mucdeeda shanta moose salaadka udbaha ugu milgeeyay qof intuu ismalmalayo
isagoon ka maqnaynba muftaaxeeda adduunyo iyo maadhka dambeeya midigtiisa ku haysta uu ka toosay manaamka sala allahu calayhi wacalaa ahlu beyti kufaartii madaxoodu dhagahoodu malaasmay markuu maaro u waayay madiine uga hijrooday xaqay iyo maroorka dagaalkii kala moosay badarkii magiciisa guusha loogu madkeeyey sala allahu calayhi wacalaa ahlu beyti markuu waaye mildhaamay sannadow muhanaayay makadii lagu miidhay ku magoolay wanaagga sala allahu calayhi wacalaa ahlu beyti maalintii rabbi doortay markuu mowdku dhowaaday muslimka ugu dardaarmay magansiiye qur-aanka sala allahu calayhi wacalaa ahlu beyti mayalkeediyo diinta madihii nebigeenna qofkii miigani toosan micida ugu qaniina inay mawjadi qaado mir habeenku asqoobo magiciisu habaabo milmo loogama yaabo bismillaahi iyo diinta barakadii nebigeenna sala allahu calayhi wacalaa ahlu beyti taasna waa heestii qasiidadii nebi ammaankii ee nebiga maalinta mawliidka ku saabsanayd nabadgelyo